aniga waxaan idiin sheegayaa sir fiican baa idiin sheegaya oo ah ma maqli jirteen waxa la dhahay bocorka tito gaduudan oo dheer hadda bal Soomaalida ugu bishaareyna bocorkaas ka titoga oo weyn oo jaalaha Soomaaliya markii dhaxda laga jeexo waxa ku jira miro oo calaq ku dhagan yahay wax yar ku dhagan yahay walaalayaal mirahaas waxa lagu daaweeyaa ilaahay wax daaweeyo dadka bidaarta qaba tinta u soo baxaysa hadii ilaahay yiraahdo taas ana gacanteeda ilaahay ku daaweeyay anaana og ko nimanka habeenkii qanj u soo kaca kaadida oo qanjirka prostate ka dib ka qabo haday bocorkaas cunaan ama saliidiisa cabaan ilaahay ba caafimaad siinay qof kasto dumar oo ilmo dhala oo naaskeeda caana lahayn haday bocorkaas mirihiisa cunto ama saliidiisa ay cabto laba ilmo kale naas siin kartaa caanaheeda naaskeeda caana siin kara ilmo kale ko qof alla qofkii sokor qaba bocorkaas ka joojinaya diilayda qof alla qofkii blood pressure qaba bocorkaas ka joojinaya saliidiisa ama wax qof kasto dumar maqaarka ka jiran ahaara qaba fin qaba baashaas ka joojinaysa waxay leedahay omega 3 fat wax dhahay nutrition bay leedahay wax ka wanaagsan xataa waxay daaweysaa ilaahay dartiis kansarka waa bocorka mirihiisa kaliya ingiriiskan waxay dhahaan pumpkin seed ama pumpkin seed oil ko waxa kale aad u fiican dadka ugu xun oo aan aad u la yaabana waxa weey waa dadka allergiga qaba indhaha madow qufacayo sanboorka qaba